asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xiran caalam dahsoon kusoo dhowaada barnaamij kaleeto oo diiniya kaasi oo nugu hadleyno aayaadka lagu xusay nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam kuwaasi oo ku yaala kutubta mushrikiinta iyo weliba kitaabka injiilka ama loo yaqaano baybalka. nabi ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa nebi eebba soo diray eebbana u waxyooday kitaabkii injiilka, balse qoomkii nebi ciise waxay ku kufriyeen ergeygii alleh iyaga oo sameeyey wixii ugu xumaa ee la sameeyo, kaasoo ahaa inay bedeleen kitaabkii alleh iyaga oo ku daray hawooyinkooda iyo wixii ay iyagu u malaynayeen. rasuulkii eebbe ayay ku tilmaameen wiilkii alleh, walciyaadatu billaah. sidaasi la mida waxaa la bedelay towraadka iyo weliba kutubtii hore uu alla soo diray iyaga oo alle sokadii caabuday waxaan kolnaba waxba u tarayn. haddaba waxaan idiin soo jeedinayaa tuduciyo kitaabka baybalka ama injiilka iyo weliba kutubta mushrikiinta ee si cad loogu xusay imaanshaha nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam. haddaba waxaa laga yaabaa inaad dhahdid sidee loo daliishan karaa iyada oo aan kutubta mushrikiinta qur-aankeenna kariimka lagu xusin. hagaag, alle wuxuu soo diray kutub badan iyo weliba nebiyo fara badan. waxa uu rasuulku sheegay in alle soo diray 124,000 oo nebi, balse 25 oo keliya ayaa qur-aanka lagu sheegay, sida ciise, nebi ibraahim, nebi ayuub, nebi daa'uud, yacquub, luud, aadam, isxaaq iyo weliba qaar kaleeto. sidaas awgeed culimmada islaamka sida Dr. Zakir Naik waxay ku doodaan in kutubta hinduuska laga yaabo in loo bedelay sida kitaabka baybalka loo bedelay, maadaama kutubta dhexdooda lagu xusay imaanshaha nebiyada ugu dambeeyey waa Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. sidoo kale waxaa kutubtaas ku xusan in alle uu yahay mid keliya oo aysan jirin allayaal kale, islamarkaana uu yahay mid aan wax lala simi karo aysan jirin, sawir aan lahayn, fotografi lahayn, wax u dhigma aysan haba yaraatee dunida ka jirin. waxaynu ku bilaabeynaa kitaabka baybalka. marka hore waxaan idiin sheegayaa in baybalku uusan sinaba u ahayn hadalkii alleh oo dhammaystiran, balse ay jiraan aayado ku jira oo aan la bedelin, sida kuwa xusaya nebinimada muxamed sala allahu calayhi wasalam. aan ku bilaabo ee buugga Deuteronomy cutubkiisa 18 aayadiisa 18 wuxuu alla weyne ku leeyahay, waxaa soo diri doonaa nebi sidii nebigii uu hore u soo diray, waa nebi muuse kaas oo aan u waxyoon doono isaga oo dadka u sheegi doona wixii aan u waxyoodo. haddaba markii aad kiristanka ama masiixiyiinta weydiiso waa ayo nebigaasi, waxay ku leeyihiin kani waa ciise ama waa Jesus, sida ay iyagu dhahaan. haddaba waxaa la yaab leh, sidee Jesus ama ciise nebi u noqday? soo idinkii lahaa Jesus waa alle wiilkiisa. la yaab, aayaddu waxay sheegaysaa nebi imanaya oo alle soo dirayo. haddaba sidee Jesus ama ciise u noqon karaa iyaga oo aaminsan in Jesus ama ciise uu yahay wiilkii alle? aamin xitaa kama jawaabi karaan baadariyaasha ugu waaweyn diinta masiixiga, kuwaasi oo mar hor dhigay Dr. Zakir Naik. sababtuna waxaa weeye nebiga la sheegayo ee aayaddaas lagu xusayo waa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Muxamed, mana rabaan inay aqbalaan xaqiiqada iyo runta. aynu ku soconno mar kale ergeygii alleh ama rasuulkeenni Muxamed waxaa lagu xusay oo si cad loogu sheegay buugga The Song of Solomon cutubka 5 aayadda 16. buuggaas oo ku qoran afka asalka ee baybalka wuxuu u qoran yahay sida tan: hiki mamitakum wekullo muhammadim sehdu wasihriya bayna Jerusalem. magaca Muxamed si ay masiixiyiintu u qariyaan waxay u turjumeen English
iyaga oo halkii Muhammad ku qornaa ka dhigay all together lovely oo macnaheedu tahay mid guud ahaan la jecel yahay ama wanaagsan oo mustafa ah. waxaynu ognahay nabigeennii salawaatullaahi calayhi wasalaam la oran jiray mustafa. haddii aad akhridid baybalka saxda ah ama baybalka asalka ah ee ku qoran afka Hibrowga waxaad ku arkaysaa ereygii ay ku turjumeen oo ahaa Muhammadin. haddaba Muhammadin waa magaca nabigeena oo gadaal laga raaciyay, sababtuna waxaa weeye afka Hibrowga qofkii ixtiraam loo hayo ama la weyneynayo waxaa magaciisa gadaal laga raaciyaa oo noqonaysa Muhammadun. haddii laga reebo waxaa soo baxaya magacii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ah Muhammad si waliba waadax ah oo aan wax shaki ku jirin. mar kale rasuulkeennii waxaa lagu xusay buugga Gospel of John cutubka 14 aayadda 16 oo nabi ciise ku leeyahay waxaan alle ka baryayaa inuu raxmad kale idii soo diro raaxeeye kaleeto. haddaba waa ayo raxmadda ama raaxeeyaha laga hadlayo. aayad kale ayaa ka jawaabaysa waa isla buugga Gospel of John cutubka 15 aayadda 26. wuxuu nabi ciise calayhi salaam leeyahay markii ay raxmaddu ama raaxayuu idii soo gaaro wuu i amaani doonaa, yacni aniga ayuu i amaani doonaa oo ah nabi ciise, wuuna iga hadli doonaa raxmadda ama raaxayaha. haddii aad fiirisid baybalka asalka ah waxaa ku qoran erey ah Periklitas oo macnaheedu ay tahay midkii ammaanaa. haddii carabi ahaan loo fasirana waxay noqonaysaa Axmed oo ah magacyadii nabigeena sallallahu calayhi wasallam. weli jawaabtu ma cadda, balse aayaddan ayaa warka caddaysay. isla buugga Gospel of John cutubka 16 aayadda 7 wuxuu nabi ciise ku leeyahay raaxeeyaha ama raxmaddu idinma iman doonto ilaa aan anigu dunida ka tago. markii aan dunida ka tago ayuu raaxeeyuhu idiin iman doonaa. haddii aad masiixiyiinta weydiiso waa ayo raaxeeyaha ama raxmadda laga hadlayo waxay ku oranayaan wax ay iyagu ugu yeeraan the Holy Spirit ama ruuxda barakaysan. halkan ayuu horac dab ahi ka kacayaa, waana halka ay doodoodu ku burburayso kuna jabayso. waayo the Holy Spirit-ka waxa ay ugu yeeraan waa sida ay aaminsan yihiin, waa wax weligeed joogtay sida ay iyagu aaminsan yihiin. haye haddaba maxaa weeye raaxeeyaha alle soo dirayo? waynu ognahay in waxa ay aaminsan yihiin ee ah the Holy Spirit ay xitaa ciise hortiis joogtay ama ay jirtay. run ahaantii xitaa baadariyada waaweyn ee masiixiyiinta ama kiristanku kama jawaabi karaan, waayo aayaddu si cad ayay nabigeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam u qeexaysaa, u xusaysaa, una tilmaamaysaa. balse iyagu ma doonayaan inay aqbalaan xaqiiqadaas cad ee waadaxa ah. mar kale buugga Gospel of John cutubka 16 aayadda 12 ilaa aayadda 14 wuxuu nabiyullaahi ciise calayhi salaam ku leeyahay I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. When the Spirit of truth is come, he will guide unto you the Spirit of truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me. macnaheeduna waxaa weeye wax fara badan ayaa jira oo ay tahay inaan idiin sheego, balse ma xamili kartaan haatan. markii ruuxda runtu ama ruuxda xaqiiqadu uu idiin yimaado isaga ayaa idiin sheegi doona waxa uu isagu iska keensado kuba uu hadli doono, balse waxa uu heli doonaa ama uu alle ku soo shubi doonaa waxa loo yaqaano waxyiga oo uu alle u waxyoon doono nabiga. aniga oo ciise ahna wuu i ammaani doonaa ayuu nabi ciise aayaddaas ku leeyahay. haddaba waa ayo ruuxda ama qofka runta ee baybalka lagu sheegay? ma jiro qof Kristan ah oo ka jawaabi kara oo sidii kuwii hore ayay ku oranayaan waa the Holy Spirit-ka ay aaminsan yihiin, balse Holy Spirit-ka looma isticmaalo ereyga he oo ah isaga oo tilmaamaya qof raga ama lab ah. guud ahaanba baybalka ma ku arkaysid hal meel oo ereyga loogu adeegsaday the Holy Spirit. sidoo kale sidii aan soo sheegnay
the holy spiritku weligeed waa jirtay xitaa ciise ka hor waa ay jirtay. taasi waxay caddaynaysaa in ruuxda runta ama the spirit of truth ee uu Bible-ku sheegay ay caddaynayso islamarkaana ayna tusayso in Eebbe subxaanahu wa tacaala uu injiilkii saxda ahaa ee aan la bedelin ku sheegay in Nabi Muxammad sallallahu alayhi wa sallam uu soo bixi doono. intaas haddii aan uga baxno Bible-ka oo si cad loogu sheegay nabinimada Muxammad sallallahu alayhi wa sallam, bal aan eegno kutubta Hinduuska oo aan Quraanka lagu sheegin balse uu Alle inoo sheegay in qoom walba nabi loo soo diri jiray, Allena uu soo diray 124,000 oo nabi. sidaas awgeed marka aynu eegno sida cad ee nabiga loogu sheegay kutubta Hinduuska waxaynu ogaanaynaa in sida Bible-ka loo bedelo oo kale loo bedelay. waxaynu ogaanaynaa in sida Bible-ka loo bedelay oo kale loo bedelay kutubtooda. sidaas darteed inaga oo aan ku raacayn oo aan buurinayn shirkigooda waxaynu kala soo baxaynaa aayadaha caddaynaya isla markaana xusaya nabinimada Muxammad sallallahu alayhi wa sallam. buugga Purana ee ay Hinduusku aadka u aaminsan yihiin wuxuu leeyahay waxaa iman doona halkii after, macnaheeduna ay tahay nabi kaasoo noqon doona nabigii ugu dambeeyay ee Alla soo diro, kaasoo hagi doona guud ahaanba aadamaha. haddaba halkan sow Nabi Muxammad kuma xusna, sow ma ahay nabigu kii ugu dambeeyay ambiyada, sow ma ahan mid hagi doona guud ahaanba insaanka. mar kale Hinduugu waxay aaminsan yihiin inuu nabigaasi ku dhalan doono gobol Carabta ku yaala. haddaba halkan sow Nabi Muxammad kuma cadda oo sow nabigu kuma dhalan magaalada Makka oo ah dhul Carbeed. mar kale Hinduugu waxay aaminsan yihiin nabigaas magaciisa la oran doono Vishnu Bhaghat. haddii aan carabi u tujirno wuxuu noqonayaa tusaale ahaan ereyga Vishnu macnihiisu waa ilaah, sidoo kale ereyga Bhaghat macnihiisu waa addoon. haddii aad labadan erey isku qabato waxay noqonayaan addoonkii Alle. haddaba sow nabigii aabihiis lama oran jirin Cabdullaahi oo macnaheedu tahay addoonkii Alle. sidoo kale waxay aaminsan yihiin hooyada nabigaas in la oran doono magaceeda Zubani oo macnaheedu tahay mid degan ama mid nabdoon. carabi ahaanna waxay noqonaysaa Aamina. haddaba sow nabiga hooyadiis lama oran jirin Aamina. mar kale waxay buugta Hinduugu leeyihiin nabigaasi wuxuu ku dhalan doonaa magaalo la dhaho Zambala, macnaheeduna ay tahay magaalo nabdoon. haddaba magaalada Makka oo macnaheedu ay tahay magaalo nabdoon sow nabigu kuma dhalan. mar kale waxay buugtoodu leeyihiin nabigaasi wuxuu aad u jeclaan doonaa timirta iyo saytuunka, kuwaasi oo ah waxyaabihii uu nabigeenu aad u jeclaa. mar kale waxaa buugtooda Vedaska ku leeyihiin nabigaasi wuxuu ka dhalan doonaa qoys aad u sharaf leh, isla markaana sharaftoodu ay aad u weyn tahay, magaalada ay ku nool yihiinna xukuma. haddaba sow nabigii Alle Muxammad sallallahu alayhi wa sallam kama uusan dhalan qoyskii Quraysh ee xukumi jiray magaalada Makka aadkana awoodooda ay u badnayd. intaas kuma ekee mar kale buugtooda waxaa ku cad in nabigaas oo Alle ugu waxyoon doono god, taasoo caddaynaysa godkii Qaarul Xiraa ee uu ka bilowday waxyigii nabiga sallallahu alayhi wa sallam. haddaba mar kale waxaa buugtooda Hinduuska ku xusan in nabigaasi uu yeelan doono 4 saaxiib oo aad ugu dhow, kuwaas oo culimmadu ay ku sheegeen inay yihiin khulafaa ur-raashidiin, kuwaas oo kala ah Abubakar, Cali, Cusmaan iyo Cumar radiyallahu canhuma. intaas kuma eka ee mar kale ayaad kutubtooda ku arkaysaa in nabigaasi uu yeelan doono faras cad kaasi oo aad u dheereeya. waxaynu ognahay in nabigeennii uu lahaa faraskaas cad. mar kale buugtooda waxaa ku yaala in nabigaasi uu dhalan doono 12 bisha Rabiicul Awwal ee Islaamka, taasoo ah waqtigii uu dhashay nabigeennii suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. ma joogsanayso oo ciidaas ayay ka badan tahay. mar kale ayaa lagu leeyahay oo lagu sheegayaa buugtooda in nabigaasi uu seef ku dagaalami doono oo uu adeegsan doono dagaalada uu galo,
taasoo caddaynaysa inuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ahaa shaqsigii aadka ugu dheeray jiray ku dagaalanka seefta iyo weliba inuu ahaa nin aad loogu ammaani jiray fardafuulka. arrinta yaab kale ayaa waxay tahay hinduusku waxay sugayaan in nebigaasi uu soo baxo oo weliba seef ku dagaalami doono, laakiin waqti xaadirkan aan joogno macquul ma tahay in qof xilligan jooga uu seef ku dagaalgeli karo iyada oo aynu ognahay in la dhistay madaafiic iyo weliba hub nucleara oo aad u daran. macquul ma tahay in nebiga ay sheegayaan uu soo baxo oo uu hal seef ku dagaal galo iyada oo aynu adeegsanayno casrigan hubka casriga ah ee aan magacanba laysula tegin. marna ma aaminayaan in nebiga ay sugayaan uu jeer hore soo baxay oo uu ahaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam. ma soo koobi karno inta meelood ee lagu xusay nebigeenna imaanshihiisa, iyaga oo intaasoo calaamadood haysta oo og in nebiga lagu xusay kutubtooda ayay haddana diidayaan oo si waadaxa u diidayaan oo aysan aqbalayn inay aqbalaan nebigii nebiyada ugu dambeeyey moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. alle wuxuu kuwaas ku tilmaamay inay ku jiraan mugdi la mid ah mugdiga gunta hoose ee badda. haddii aad ka heshay barnaamijkan ha ilaawin inaad barta cas ee subscribe ka taabatid, sidoo kale ha ilaawin inaad like saartid